عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلامنا دمان أمد الصوماليين ميلو البوجوكتين سو دوادا waxaan caawa rabnaa inaan ka jawaabno codsiyadiinii ku socday dhanka Cabdiwahaab hanoo soo dhameystiro arrintii jacaylka insha Allah ta'ala waxa la idin dhameystiri doonaa caawa haduu Ilaahay yiraahdo oo la idin faahfaahin doona siday wax ku dhaceen anagoo ka codsanay Cabdiwahaab inuu noo faahfaahiyo arrintii jacaylka waxaan ku soo dhaweynayaa marka hore Cabdiwahaab waan dhawahay mareen walaashay qaali waad maasan tahay mid kale waxaan halkaan ka salaamayaa dhammaan daawadayaasheena ku taxan channelkan Maryan Kawale official waxaan idin leeyahay sidoo kale waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subscribe-ka like-ta share-ta and comment-iga wixii adigu ku qanciyo saaxiibkaana waa hubaal inuu qancinayo share-ta marka saaxiibtaada ha ka baqiilin saaxiibkaagana ha ka baqiilin marka share-tana la wadaaga insha Allah mawduucan waan gali doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo in codsigiina anagoo ka jawaabayno markastana u taagan in codsiyadiina inaan waxyaabaha ay ayaga rabaan ama waxyaabaha ay ayaga daneynayaan ay naga soo codsado oo ku faraxsanahay mar walbana insha Allah ta'ala codsigiina waan ka soo jawaabi doonaa balse waxaan idinka codsanayaa video-ga hadduu idin soo gaarin inaad subscribe like share comment like to waxba idinka ma dhibayso waa free annagana waxay noo naqanaysaa dhiirigelin waxayna kor u qaadaysaa video-ga inuu saaxiibka gaaro ama saaxiibta oo gaaro insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaad intaasba aad sameey doontaan soo dhawaad Cabdiwahaab adoo noo faahfaahinayo waxyaabihii waan dhawahay Maryan waa ku maasantahay mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad sidoo kale daawadayaasheena qiimaha laha ee ku taxan channelkan saasoo kale to mar walbana waxaan u taaganahay yani wixii idin anfacayo ayaa anagana anfacayo marka wixii oo dalabkiina ah inaan ka jawaabno inkastoo arrintan aniga yani ay xanuun igu taabanayso aan dareemi kara xanuunkiisa inaan wax dib u soo xasuustana marka aan jecleen laakiin anigoo fulinaya codsigeyga oo aad ii soo jeediseen ayaan waxaan idin leeyahay diyaar ayaan u ahay Maryan horta aan ku waramo aniga arrintan aan jacaylka habeen dhaweed aan soo qaaday uma aan faahfaahin saaxiibaday laakiin caaw waxaan diyaar u ahay aan ku qasbanahay inaan u faahfaahiyo maadaama dhowr jeer si direct iyo indirect naloo soo weydiiyay xataa meesha aniga marka aan yani aan fiiris loo markaan arko taageerayaashu waxay soo codsanayaan misna aan ka jawaabin aniga lafteeda xoogaa waxay ugu noqotay ceeb bay ugu noqotay marka arrintan xanuunkeeda iska leedahay qisada marka aan ku bilaabo Maryan waxay ahayd xilli oo Muqdisho aan joogay arday aan ahaa waliba class-ka 8aadna aan ahaa rajadeedana ay ahayd inaan u gudbo secondary ama dugsiga sare inaan u gudbo laakiin waxaa dhacday yani arrin caado ah ama horay dhaqan u soo jiray ah oo annaga dadka naga horeeyay ay sameeyeen annagana aan sameeyayno dadka naga dambeeyna ay sameyn doonaan arrintaas oo ah jacaylku waa wax horta soo jiitamo hore u soo jiray ma ahan wax ceeba laga soo bilaabo aadan iyo abo taxaawo jacaylku uu soo jiray laakiin dadka jacaylku wuxuu u haleelaa siyaabo kala duwan inkastoo mar walba la sheegay jacaylku waa xanuun badan qof bila jacayla ku dhacay qof bila qofkiisa yaa ka tagay qof bila saana laakiin ilaa hadda lama kulmin intaan halkan aan ka hadlayo social media qof ile jacayla intay ugu dhacay dhibaatadaas ugu reeba adiga ka hor waxa uu leeyahay inaan kula ooyo markaad aad ka sheekayso aniga ku hortaagan rabana in aan ka hadlo يعني وحي أديك مقال كوجا هنجري عاو أديك إن جوب وهاتو دجاها وكودا عن عندها أركان إن عاو حاول إن وأرن عن ماشى عن أوفديو يرجع مفروض مرك الله هنا أنا ما آمن يجرين تاس والله بالله أرن جعل فقير قالي مفروض مرك الله أنا ما آمن يجرين يعني واحد يروح الرواية هلو معانينا لكن بالحقيقة أسوأ أنا جاي تعوتي إن مرك قصة دينا كودا حجلا الرواية مريني مرك إن dadkan asxaabteena ah ku xiran kanaalkeenan waxaan marka aan rabaa iyaga laftooda inay marka arrintaas wixii tala iga siin karaan iga siiyaan iga caawin karaan marka arrintii hadda ku bilaabaya Maryan waa gartay laakiin intaadan ii bilaabin waxaan rabaa hal codsi inaan asxaabta ka codsado idinka codsigiini waa soo dirsateen oo waxaad dhahdeen Cabdiwahaab jacaylkii xamar ka soo kaxeeyay Masar ku soo tuuray dacis la'aan ha nooga sheekeeyo idinkana waxaa la idinka rabaa waxay idin la tahay Cabdiwahaab arrintan ku dhacday inaad idinkana commentiga noo soo raacisiin hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah waan ka sugaa aniga waliba talooyin badan aan uga fadhiyaa
iyo wixii ra'yigooda ah wixii way aragnimo experience ay leeyihiin inay ugu soo kordhiyaan marka arrinta haddaan ku bilaabo waxa aan saan hore usoo sheegay waxa waaye aniga oo dugsi dhexa ku jiro galaaska 8aad dhiganayo ayaa waxaa dhacday gabar ku jirta galaaska 6aad ardayda kamid ah ardayda subaxii sida caadada Soomaaliya waa la yaqaanaa saf baa la galaa heesta calanka la qaadaa marka ardayda marka saf saas loogu jiro gabadha waxay ahayd gabdhaha ka soo dhalaali jiray meesha yani oo ishu ay aad u milicsanayso ama isha soo qabanaysa ahayd markii ay taas laga soo tago haddana waxay ahayd gabar furfuran oo yani oo dabeecad wanaagsan oo dadka la qoslaysa ahayd anna waxaan ahaa ardayda oo iskuulka yani arday kamid ah kooxda iskuulka waxaan lahaan jirnay ciyaar banooniga la ciyaarayo oo wiigiiba galaaskii uu leeyahay marka galaaskeena markuu ciyaarayo iyo galaas kale isku baxayaan ardayda kale meeshii joogto waxay noqon jireen dad la kala safta labada dhinac marka labada dhinac la kala safan jireen gabadhii waxaa ilaahay nasiib oo ka dhigay yani in galaaskeena dadka maalin la safanayo inay noqoto ee noo sacbinayo aniga markii horeba oo farxadeedii iyo safka markii lagu jiray oo xoogaa wax dareemay marka inta soo noqotay waxa isla markii maskaxdeeda qalow ku soo yiri waxa loo sacbinayo dadka maana adiga ku sacbinaysaa waaw hinaasa ku galay hinaasa ay galay xoogaa hamiya ay galay gabadhii waxaan damcay inaan la hadlo laakiin alxamdulillah waa ku guuleystay inkastoo aan u maray gabar kale oo saaxiibadeeda ah oo annaga classmate ilaaha fasalka asli kula jirnay waxaan ku dhahay abaay maalmahan waxbaan dareemayaa marka bal maxaa marka kugu dhacay ugu dhahday gabadhii waan u sheegay si hoosaan ugu sheegay waxay ku tiri intaas hadday tahay okay gabadha anaan la hadlaayo balogow laakiin gabadha maasha allah waxaad moodaa in qalbiyadeenu is ogaa yani wehel qalbi wax ah inuu jiraan isiri aniga gabadhii way aqbashay gabadhii adiga waxaan dhex maray xiriir laakiin xiriirkii waxaa meesha dhibaato ka taagneed gabadhii walaalkeeda ayaa iskuulka dhinac ka dhigto waa arrin aad u culus laakiin isku galaas ma ahan marka gabadhii waqtiga kaliya aan heli karo waxay noqonaysaa inaan isku galaas nahay haddii iskoolkii laga soo baxo walaalkeeda la socdo xaafadda loo wada socdaa marka meesha jaanis kuma jiro aniga marka waan fikiray talaan qaatay taladaas oo ah anigoo galaaska 8aad ah imtixaanka inaan isrido si la ii keeno galaaska ay hoos la ii soo dhigo darteeda marka la leeyahay jacayl dartiisa yani wax walba waa loo samayn karaa waxyaabaha aniga soo maray ka mid ahayd mana jecleen caaw inaan ka hadlo yani arrintan qiiro gaar ay u haysaa dareen gaar ay u samaynaysaa laakiin waan sameynaya waan ka hadlayaa waxaa dhacday in aniga aan imtixaankii gadaal isku dhigo oo la ii soo celiyo galaaskii 8aad aan laga soo qaaday 6aadkaan rabana la ii keenin 7aad la ii keenay 7aadkii la ii keenay يعني أرديك مركي وتحانك دعو ومورال جوا ومورال دلاعة وحورها يعني محاكو دعي ولا قدر ما سكول كلفتيسة دوري ولا قدر ما سيبو روبتايا سيبو نقطة لكن أنا فرحة كقاعد وابو كسي عيش وابو كفر حيبة وهكرت التحال لو قدعو لقنا حلارك جري التحال لو قدعو لقى فرحة لما حاسمي خرجة جيبس وحلي رقبتيسة كمان حدا الله قشتيسة وهكرت مركاني وكفر حي لكن فرحة ديا صار رأيي نقولنا وحيقول كشيء تضباط يقول كشيء صح لما تضبط إلا هذا النعبة ورد السر وعاودين كان شيء عبد الوهاب وما هتصنت هاي هرت ميستري مركي أنت قبل درات ده إسسور ردي إسكول كي عاد ماشهد ربطنا عاد جاري ويسول وجيم ويا تضباط بقطورة أظهر رب اللي حاد إن عتكتور لببون تي هاس الجود ميستري نصيب كابو موعدنا ha ahaatee markii aniga leegiyay 7aad aniga wili ma aan jabin ma aan isdhiganin waxaan ka shaqeeyay sidii aan dib liigu celin lahaa ama gabadha aan kor ugu soo qaadi lahaa nasiib wanaag mana helin gabadha inaan kor ugu soo qaado si ay 7aad ay u imaato laakiin aniga 6aad isgeeyay marka 6aad isgeeyay waxa meesha ii suuro gashay in gabadhii aan waqti aan ku hadalno aan helno maadaama xilligaasna telefoonada la isticmaalay ee ahayd leenka xaafadaha ku jiro xaafadan waa iska dareemi kartiin kolley waa lisii weydiin leen nooguma jirin ma garatay jacayl faqiirka lama fududo marka waa waxyaabaha aan u eersanayo jacaylkeyga inuu yani oo burburo keenay marka waxaa dhacday leen oo waxaan ka tegi jiray oo branji ama wiilal xaafada adiga kama bogan kartid yani gabadha waqtiga helaysa adiga waqtigaaga iskuma keenayo adiga markii sidii loo joogay aniga jacaylkeeni yani aan rabay inuu meel fiican noo gaaro ayaa waxaa dhacday gabdho kale in gabadhii adiga la quraamiyo laga dhaadhiciyo lagu shubo program ah
waxa la yidhahdo tahriib. waa garta aniga jabkayga igu daran horta meesha iga soo gaara meeshaasay noqotay. cabdiwahaabo horta misteri inay dadkaas gabadhi aada jecleeday oo darteed aada mustaqbalkaaga u baabi'isay. qofka ilaa markuu wax baranayo waa mustaqbalkiisa waxbarashada oo wuxuu hiigsan doonaa inuu berri wuxuu barto uu ku nacfiyo. ma kula tahay adoo waxbarashadaada iyo mustaqbalkaaga gabadhaas u dayacay hoos isku soo rida adoo inaad kor isu dhigta loo baahnaa haddana gabadhi tahriib lagu qalqaaliyo lagaas gabdhihii ay kaasoo tashkiiliyeen gabdhahaas ma kula tahay inay ka shaqeeyeen guri markaas dhismi lahaa inay dumiyeen? gabdhahaas waxay ka shaqeeyeen laba dhibaato, hal dhibaato ma ahan. kow waxay dhumiyeen mustaqbalkeygii iyo higsiga aan waxbarashada ka lahaa dhibaatay u geysteen. waa garta labo jacaylkeygiina way burburiyeen. waa garta marka waxaa dhacday gabadhii maalin maalmaha ka mid ah maalin jimco ah adiga waxaan ballanay iskuulkaan ku ballanay waxaan nahnay jimcihii aan is aragno. markaan is aragno yani arrinaan rabaa inaan kuu sheegay igu dhahday. waxaan ku kulanay KBB ama Casa Populares aad u taqaaniin masaajidka Sheekh Cali Suufi agtiisa gabadha isku aragnay. waan wada hadalnay arrin aan la ilmeeyey ay gabadha ii sheegtay oo ahayd arrintaasi in ay igu tiri waxaan rabaa tahriib inaan aado. waan tahriibi rayaaba marka inaad iraacdo aan kaa rabaa. waa garta qof tacsi loo soo sheegay xitaa noocaas uma naxo ama ma dareemo waxaan dareemay saacaddaas. waxaana gabay inaan gabadhii jawaab haa ama maya midkeedna inaan siin karo waan awoodi waayey. lugahaygan dhulku way ii qaban waayeen. bismillah haya markii lugaha dhulka ii qaban waayeen waan ilmeeyey. waxaan u sheegay marka aan garan waayey oo gabadhiina hadal iga sugayso hadal iga weysay oo iga tagtay ayadoo wax jawaab ah aan iga helin. waa garta laakiin ayada shaydaan iyo gabdhihii kale waxa ay u fasiratay gabadhii in aniga aan yani jacaylkeyga uusan ahayn jacayl yani hore usii socday oo mid beena uu yahay oo been yahay aan go-aan degdeg aan qaadan karin. laakiin aniga waxa aan filanayay iyo waxa markii igu soo baxay ayaa waxay igu sababtay inaan aniga aan inaan gabadhii jawaab haa ama maya midna inaan siiyo. waxaa dhacday gabadhii inay baxday. waxaan ka war helay iskoolkii markay imaan weysay waxay dantii u kaliftay wiilkii walaalkeeda ahaa inaan u maro gabadhii marka horeba ka shaqeysay inaan isbarano oo gabadhii waxaan ku dhahay abaay dhibaatadaas iyo dhibaatadaas jirta maalmahan oo yani xiisadii xataa waan qaadan lahay. lixaadkii haddaan ka dhacana shanaadaan tagaa gabadhin inay 7 u gudubtaa laga yaabaa dhibaato kale noqonaysaa oo mustaqbalkii haddana jab kale soo gaaro. gabadhii saaxiibada ay ka warkeen. gabadhii waxay ku dadaashay inay soo ogaato gabadhii waxay soo ogaatay gabadhii inay baxday haddana ay ku sugan tahay waddanka Kenya ay gashay. waa garta aniga waa kala igu dilaacay. waxaan qaatay go-aan geesinimo leh markan. waxaan isiri niyohow caana daatay dabadooda la qabtaaye bal hadeertaanay dhowdahaye hoosha bal niyohow xooga saar. waa garta connection badanaan raadiyey. adiga waxaan ku guulaystay gabadhii inaan xiriir ka helo. waxaan u sheegay inaan soo baxaayo. waa garta laakiin ayada waxaa u muuqday يعني maalinkiina jawaabta aanan siinin iyo tahriibkii wax loo sheegay. adiga see noqotaba gabadhii haye igu tiri laakiin waan soo baxay. markaan Kenya imaaday gabadhii nasiib wanaag maan ugu imaanin. waxaan maqlay inay ay Uganda joogto. anigana waxaan iska ahanin iska xaaladiisa iska ahayd. isla markaas go-aan degdeg ama qaadan karin kama aan dawbixi karin. abaabul aan sameeyey kadib waxaan ku guulaystay inaan Uganda tago. balse waxaa dhacday inay gabadhii tagtay Suudaan. markay Suudaan tagtaan maqlay oo haddana waxaan isiriniyow intii hore bal ka dheereey dadaal muuji adiga waan dhaqaaqay. marka waxaa dhacday in aan Suudaan aan tago laakiin gabadhii Suudaan ay ka baxday. markaasaa waxaan la tashtay wiilkii oo anigii waday oo marka horey oo safarkayga qabaqaabad wax waday oo na diraaye. waxaan ku yiri niyow aniga nin dhibaatadaas haystaan ahaa. markaa Suudaan soo galayna waa ka afeefto waxaan ku yiri dhaqsinaan u baxaan rabaa. wuxuu yiri niyow adigu ma waxbaad dad baad soo dhacday ma dhibaad soo geysatay madadaad dishay maxaa kugu dhacay? ni waxaan ku dhahay dadna ma dilin waxna ma soo dhicin laakiin anigaa dhacan oo la soo dhacay. nin jaceylkiisii laga soo dhacay
ma dhacid kala u woo yaabay markaasuu yiri maxaa lagaa soo dhacay markaasaa ku dhahay niyo wax haddii dunidan waxa yaalo dhan la keeno aan qiimihiisa lagu qiimeyn karin aa laga soo dhacay wiilka woo yaabay markaasuu yiri niyo culamo ma ku waca quraan ma ku saaraa markaasuu ku dhahay maxaa dhacay markaasuu yiri marmar ma xanuunsan jirto oo waali qabtay adiga wiilkii shakiyaa ku dhashay mayaan ku dhahay niyo marka wuxuu yiri waxaan dunida dhan haddii la keeno oo yacni oo qiimahooda ka badan yahay maxay tahay qalbigaa laga dhacaan ku yiri jacaylkayga dhacay markaasuu yarkii wuu ii garwaaqsaday wuxuu yiri niyo waa sax marka waxaan ku dhahay gabaraad jeceshahay maanta haddaad weyso iyo waxaa adduunyada saaran keebaa kuu qaalisa markaasuu yiri saaxib waa sax oo ii qaalisa marka waxaan ku yiri ma waalni jacaylka i wado ayaa saas ah ku dhahay marka wiilku wuu ii garaawsaday waxaana go-aansaday inaan meesha ka shaqeeya marka waxaan shidan jiray hees binti cumar gacal ee leedahay yacni aan isdhihi jiray waa heesaa iska caadi oo ahayd anigoo baled xaawa jooga maxuu bari iiga yeeray markaan boosaasa gaaray muxuu burca iiga yeeray anoo beer sii maraya hadduu badda doonka raacay inuu been ilaa jilaayay adaa boqorow ogaaye ibixiyo iga badbaadi heestaasaan dib u jeclaaday sida hees maalintaas soo baxday inay tahay wow cabdiwahaabo waxaa kusoo marta taariikh aada u adag faanoola faro kama qodno weli sheekadu way dhiman tahay waxaa dhacday cabdiwahaabo ma jirtaa qof garab kugu siisa si aad uga daba tagto ama wiilkii ha naqato ama qof kale ha naqatay gabadhi aad rabtay ood jecleeday oo kaa tagtay si aad uga daba tagto qof aad jaceylkaaga inta uga sheekaysay kuu garaabtay ma jirtaa abaayo waa sax su-aal meesha ku jirto muhiim ah waaye aniga intii hore yacni dhiirigelin badan ma haysan wiil aan saaxiibo nahay yacni dhiirigelin badan markaan ku leeya yani wiilkaas haddii bini aadam wax lagu taageeraya yani xagga fikradda iyo hadalka iyo dhiirigelinta way igu taageerayay laakiin soomaalidu waxay dhahaan war jeeb ma gale lacagaa jeeb gasho dhaqaale xaggeeda wiilkan asagana waa iga liitay marka taasaa jirtay laakiin markaan suudaan imaaday xoogaha waxaad maleysaa in xoogaa xaniya a yeeshay wiilki markaan u sheegay arrintii aan dhahay waxaas qaaliga iga maqan qalbiga iga maqan dhahay wuxuu ka shaqeeyey si deg deg ah sidaan ugu bixi lahaa aan ku imaan lahaa dalka masar si gabadhi aan meesha isku heli lahayd waan soo baxay laakiin gabadha waxay ahayd gabar waxbarashadeedii waxay dhan seegtay tahriib u go-day ciddii markay la hadleena ay kari waayeen waxay is dheheen gabadhi intay meel idinkaga dayacmi leed dhiman laheyd gabadhi hala garab istaaga gabadha ayada boosaa loo gaday lacag baa hor waday markaan anigu masar soo galay oo saas aan usoo galay anigoo nasan baa waxaan isku dayay gabadhi inaan raadiyo laakiin nasiib wanaag waxaa la ii sheegay inay tahriibtay oo doonta raacday markaas aniga waa igu dilaacay jacaylkayga markaasaa waxaan idhi dhaqaaq oo biyaha qaad dhulka taakataako dharaartii la jooga heestaasaan u qaaday oo aan leeyahay yacni hore usii soco si sama ah biyaha ku gudub adduunyada ilan inaan ayada aan habaaroon waayo waxaa ii dhaantay in biyahaas ay ka gudubto oo meel tagto waa gartay cabdiwahaabow gabadhi markay ay kaa raacday doontii ee ay tagtay waddanka maxaa la dhihi jiray Yurub waxa sidaan ognahay markii doon la raaco waxaa laga digtaa Talyaaniga kadibna waxaa la sii galaa waddamankaas gabadhii aad sidaas ugu soo rafaaday oo xamar ilaa inta aad ayada daba socotay adigoon wax kale aan raadinaynin dadku way tahriibaan oo nolol kale iyo Yurub iyo meelay ay baacsadaan inay tagaan adigoon intaas aan raadinaynin gabadhaad raadinayso oo darteed mustaqbalkaaga iyo waxbarashadaadii iyo waddankaagiiba aad kusoo seegtay dib ma kuu soo xiriirisay oo ma ku tiri xaggeed ku dambaysaa amba saan waxyeelna aniga baddi waa kasoo gudbay marinay waa sax dadka tahriibayo badanaa hadaf bay leeyihiin oo ah in nolosha ay joogeen ee Africa nolol ka fiican raadsadaan wadamadaas hore u maray tagaan nolol horumar la sameeyaan laakiin aniga taas oo ka duwanaa safarkayga anigu safarkayga wuxuu ahaa sidii aan ku heli lahaa jacaylkayga bal waxaa dhacday gabadhii markay Talyaaniga tagtay ay nabad tagtay aan ka war helay inay baxday ay tagtay Germany magaalo Frankfurt la dhahaan joogaa igu tiri gabadhii waan xiriirini jirnay adiga markaan xiriirnay oon wada soconay gabadhii waxaan ku dadaalay
in gabadhii aan soo ceshan karo ugu yaraan oo marka aan leeyahay yacni soo noqo adoo nabada heesooyin saas oo kaleeto yacni aan heesii hore aan u qaaday oo yacni aan dhahayo xataa baasaboorka yar haddaad soo heshid adoo nabada iisoo noqo maadaama aan waddankiina aan kasoo tago kuu soo dhawaaday biyahaasaa noo dhexeeya nalka Yurub waa aragnaa ayaan ku qancin jiray nafteeda leerka baxaayo waxaan u malayn jiray leerka dhinaca Talyaaniga iyo waxaas kasoo ifaya inuu yahay adiga nasiib daro laakiin waxaa dhacday yacni waxaan filanaynin ayaa meesha kasoo baxday oo arrin aniga xanuun igu reebtay aniga marka hore hadafkeygu ma ahayn Yurub iyo xiiseeda ma ahayn inaan u socdo waa tan hadda aan i joojisay halkaan aan u joogo waaye maadaama hadafka aan ku socday oo guul dareystay oo awsan ahayn Yurub gal ayaa waxaa dhacday gabadhii maalin maalmaha ka mid ah inay ila soo hadashay ay igu tiri see tahay ma fiican tahay iyo dabeecad aan ku aqiinay dabeecadaan ahayn ayaan gabadhii aan ku arkay oo marka ayadoo rabta in qalbigeyga ay dejiso iguna qanciso yacni wax aanan nafta lagu qancinin oo gabadhii inay la soo hadashay si hadalla dabacsan ereyadii horey aan ku barnaa qaali gacal iyo meesha ka baxday walaal qaali walaal macaan ereye ah inay marka gabadhii igu dhahday markii intii igu dhahday haddana igu tiri niyahow waxaan rabaa inaad iisoo duceyso arrinaan leeyahay marka inaan kaa farxiyaan go-aansaday lacagaan kuusoo diray shirkadda tag ka qaado marka waxaan ku dhahay waa kuusoo duceynayaa ducadana ma la kala iibsado soo waxa garata maahan jacaylkeygaa tahay qaalideedaa tahay wax walbo waxaana lacag iyo wax uma baahni lacagtan waxaa iga qaalisan adigaan ku dhahay laakiin saan aniga aan ducada noocan u fikirayay ama aan u rabay ma ahayn aniga waxaan is dhahay gabadha ma Jarmalkii waxbaa xogaa yar wareysigii maa ku adkaaday as lahaa laakiin arrinta way ka duwanaatay markii ma shaqo waxay dhacday maalinkaas wixii horey dhibka aan soo maray iyo wixii oo dhanba waxay noqotay dhalanteed gabadhii markay kusoo wacda Cabdiwahaab ee ku tiri ii ducey waxaan leeyahay haddana leeyahay waana kaa farxinayaa iyadu waxay u fikirtay inaad jacaylkaagii oo lacag iga gadato ay kaaga gadato si fiican balse taasu ma dhici karto naf wax jecel horaa loo arkay maxaa ka dambeeyay markaad maalintaas aad tiri waan kuusoo duceynayaa naftana lama kala iibsado iyo ducada markaad tiri maxaa ka dambeeyay aniga gabadhii horta lacagtii waan ka qaadanin waayey oo waan ku celiyey waxaan ku dhahay yacni waxay igu muuqanaysaan ku dhahay ducada inaan kaa gadanayo oo jacaylkeygina oo wax oo marka oo yacni qiimo inaan siisanayo marka taasna waxaan ku dhahay yacni maahan xilli kale oona duca iyo waxna aadan iga soo codsanin waxaad marka aniga iga farxinayso markaas iisoo raaday ayada waxay u qaadanaysa in aniga farxad iyo aan ku helayo lacagtaas laakiin yacni waxa waaye farxadeedii ay ku dhuminaysay yacni murugadeeda ka shaqeynaysay marina waxaa dhacday gabadhii hadalkii xoogaha uu igu laba dhacay marka waa ii cuntami waaye gabadhii inaan la hadlo waqti adiga aan qaadato waxay noqotay waqtiga ugu dheeraa aan ebed aan isla hadalno intaan isnaqiinay gabadhii waxaan isla hadlaynay in ka badan 18 saacadood oo xiriir ah oo direct ah anigoo dhinac kasta wax u jiidayay alakhiiran waxaa gabadhii ka soo saaray in nikaaxeeda uu dhacayo maalinta khamiista ah waa midda keentay in aan awoodi waayo in gabadhii marka aan hadal kale la sii hadlo telefoonkeygii aan gacanta ku haysana gacanteeda uu ka dhacay telefoonkii oo gacantii ay qaban weysay dhulkii la jareeyey waxaa iisii dheereed guriga dhalinyaraha isla degnayn oo hurdayay inaan hurdadoodii aan dhibaato ku noqday oo sida qof meel mugdi ah looga soo baxay lagu soo booday aan qayliyay controolkii aga tagay ogaalkii يعني أرين أن قادم ويقولون قد مركو حنقول هاي وحلو كفتمين وحلو كفتمان جرو أرنتان محيط هاي عاود شيء يصير وقت عندنا أصلها لأنه محيط عاي مركو حقول تري وحنا كقرنا مالهن وكاس وحي إيسو صورتي وأنا نتصلها عاو لكن إن وحاول دمير كي جالسين وأنا ورقة صيحة وان كوبي يعني أو وحي إيسو درتي ورقة invitation وإيسو صورتي وان بليف كريسن واي إني بوست صادقتي جالسين مركا إن أنا جو أرنتاس وحيقول نقطة أرن حنون
warqadina waxay noqotay inaan marka aniga aan yani heen waayo oo ku caddahay nikaaxooda inuu dhacayo maalinta khamiista cabdiwahaabo waxaan ku leeyahay sorry waan kaa raali gelinaynaa wixii dhacay sorry aan ku leeyahay raalli ka noqo waxaa fursado badanaa kuu bannaan haddii uu mustaqbal meel aad ka filanaysa oo kaaga yimaado arrimankaasoo kale waa arrin aada u xun asxaabteyda waa idin salaameynaa maanta cabdiwahaab caawa intaan ka badan ma hadli karo anigaa la joogo dareemayo waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu